المصريين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد halkan maanta waxaan iskugu nimid annagoo ah walaalo degan magaalada Birmingham oo bishuna ay tahay 25kii maalintii Christmaska ahayd inaan u soo duceyno oo walaalkayo Liibaan Mustafa Xasan oo indhihiisii waxa weeye waayay inuu Ilaahay indhaha u soo celiyo ummadda kalena waxaanu ka codsanaynaa dhamaanteed in ay duco iyo kaalmo waxay u tari karaan ay ku taraan intaasaan ku soo gabagabayn lahayn walaalaha kale iga dambeeya ayaa inta kale sii dhamaystiri doona wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعاو هالكم waxaan isku imanay barnaamijkii taageerada Liibaan Mustafa waxaan halkan madartay horta waan ku duceynaynaa waxaan leenahay Ilaahay caafimaadkaaga ha ku soo celiyo aragaagana Allah ku soo celiyo waxa kale waliba aanu halkan uga si gaar ah uga sheegayaa aragaaga iyo aragtidaada ku hadhay xoog gale madartay fikirka dheer leh inaad halka ka sii wadid ayaan horta aad iyo aad madartay ugu waaninayaa waxaan leeyahay ha joojinin madartay inaad sheegto fikradahaaga iyo aragtidaada dadkii ku daawaday markii lagu wareysanayay aad iyo aad ba fikradaha loo dhacay marka halka iyadana ka sii wad haddii indhaha laga qaaday aragii maad waayin halka tii kelmadii aad sheegtay ku sii wad sida kale aan ku soo duceynaynaa waan ku taageeraynaa ilaahayna waxaan kaaga baryaynaa inuu caafimaadkaaga si iyo aragaaga si degdeg ah kugu soo celiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaan ka salaamayaa ducana u soo dirayaa walaalkay Liibaan Mustafa Xasan walaalo waxaan ku rajaynayaa caafimaad insha Allah taala waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu dhaag ilaahay ku soo celiyo maanta waxaan joognaa meel aan isku nimid anagoo rag badana waxaan u sameynaa arintaas mataqaanaa fundraising aba in xogaa dhaqaale lagu wariyo si walaalkay Liibaan insha Allah arintaas indhaha in lagu soo celiyo ay tahay inaan qayb ka qaadano marka waxaan leeyahay ka barjeeyaa insha Allah taala inuu indhaha ilaahay ku soo celiyo walaalkay inuu wax taa waan oo sawir badan oo xoog badan iimaan badan ma sha Allah okay aabiga ku soo ducaynaya oo barakallahu fiik wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh garanaysa tiiraanyoonayna isagoo xubnihiisii caafimaadka qayb ka mida waayay oo ay gacan ka gardaranay ay gaadhsiisay ilaahayna aan ugu baryaynaa inuu ugu bedelo wax khayr qaba wuxuuna kuma aha ilaahay inuu soo cesho laxaadkiisii aad baan uga tiiraanyeysanahay assalaamu calaykum horta ninka diiriye walaalkeen diiriye daahir oo noo qabanqaabiyey fundraising dinner for Liibaan Mustafa Xasan waana ku mahadsan yahay intii ka soo qayb qaadatayna way ku mahadsan yihiin walaalkeen Liibaanna waxaan u rajaynaynaa caafimaad qab iyo cimri dharar iyo bashbash iyo barwaaqo in fundraisingana lagu guuleysto khayr badanna aan u rajaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنيقو مقعيق خضر إبراهيم نعاو وحن شوقنا مقالة برمنغهام UK وحن ما أنت آد وقفر حسنا إنا كسو قيب قلنا فنريسين لو سمي ولكن Liibaan Mustafa Xasan oo gacan ka xaq daran ay indhihiisii ay ku seegsiyeen waddankaasi Belgiumka waxaan maanta halkan isugu nimid inaan walaalkeen aan u sheegno inaan mar walba aan ka xunnahay wixii ku dhacay gacanta ka xaq daran ee heshayna aan leenahay waxba ka faa'iidi maayaan ilaahay waxaan kaaga baryaynaa in indhahaagin ilaahay ku soo cesho waana ku soo duceynaynaa dhammaan waxaanan mahad ugu celinayaa dad ka soo qayb galay dhammaan iyo deeriyo isagu qayb weyn ka qaatay Liibaan ilaahay ha ku caafiyo indhahaagina ha ku soo celiyo assalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الملك آدم حسن from Wolverhampton waxaan iskugu nimidnay maanta meeshani inaan la qaybsano murugada walaalkeen Liibaan oo gacan ka gardarani u geysatay oo indhihiisii halka ku waayay ma taqaana waxaan leenahay waan ku wada garab joognaa waan ku saacidaynaa wixii maaliya muruq waa la isku geyn niyadana adkayso insha Allah maxaan ku idhaahdaa kuwa gardarrada geystay
ee dhibta ku geystay aakhiri adduunba iyagana waa ka go'an tahay adduunkana kullay sharciga lala tiigsan doonaa aakhirana ilaahay baa ka jari doonaa adigana insha Allah ducada dadkoo dhan baa ku soo duceeyay dadka reer Jabuuti oo dhan baa ku soo duceeyay iyo Soomaali oo dhan baa ku soo duceysay annaguna ku soo duceynaynaa caawna halkan annagoo fara badan oo qabowgaas jiro waxaan iskugu nimidnay oo qabowga ugu adkaysanaynaa waa daraadaas lacag dhaqaale urursigaas aan uga soo qayb galnay marka walaalo waxaan ku leenahay murugada waan kula wadaagaynaa ducadana waan soo wadnaa Allah ku caafiyaan ku leenahay dhamaanta ducadana insha Allah si dhaqsaad oo arki doonta insha Allah وانا كسلام يا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. This is live from Birmingham وفتحي فتحي عبدي وفتحي محمد جامع جوجي لو يقانو روي عاده مقالة برمنغهام كنول انجليز كا برمنغهام بان جوجنا جاليدي برمنغهام بان لا جوجا waxaan insha Allah meesha u nimid waxa weeyaan liban fundraising loo sameeyo waan qadeynay waan cuntay waan cashaynay meel buffeda fundraising oo sameeynay lacag baan iska ururinay diyaar baan nahay liban anigu waxaan ugu tagay Brussels waan tagay December bilowgeedii waan is aragnay raga kale waan la kulmay waan soo ziyaartay ballantii halka ku soo qaadayna waan gacan ka oofinay Birmingham انت ساوني ان شاء الله وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waa Zakariye waxaan halkan duco uga soo dirayaa Liban insha Allah ta'ala Liban waxaan kuugu duceynayaa inay aragaagi Ilaahay ku soo celiyo oo indhahaagi dib aad u heshid. Assalaamu alaykum warahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaa ka soo hadlaya Xuseen Maxamed Aadan from Wolverhampton West Midland waxaan halkan taageeranaa walaalkay Liban Mustafa Xasan waxaan ku leenahay walaal waan ku ag taaganahay hadiya habeen insha Allah ilaahay caafimada ku soo celiyo gacankaaga danan baa ku dishay waan ku soo ducaynaa waan ku taageeranaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaani raxiim salaatu rasuulillah sallallahu alayhi wasallam xaga magacaygu Cabdiqaadir Axmed Amiin halkan waxaan iskugu imanaa wax kale maaha sidaan u taageeri leen walaalkeen Liban Mustafa Xasan حقاً ولا لوحن كاجسو جديدنا دعاء بورها كوين دعاء بدة كوين إن شاء الله إلهي قعنتي كحق درنا إلهي إن شاء الله إلهي بكل حساب إلهي بكل حساب تمي دونا مركا والله هرت ولا لها بودن هرت حاجة ما توحش قوي من واحد كلمة سانو قرقاري لين ولا الكين أو ده وحول بانو قرقاري لهين العقا هاتو دعاء هاتو هذا لا هاتو مركا إن شاء الله إلهي وحوم برينا إنه إلهي عافمادكيس إلهي ينديس بإلهي ويسوعش إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مقعي حسن حسن عجة. أنا كنا يمدي مقالة ووصل إن واحد حاجة نوني مني إن إنسان تاجرنا ولكن ليبان مركو رصات وندعو عيننا واحد سكون مننا ندعو عينه اللهم استعان إلهي بقى عافمادك يا إلهي بقى عافن أنا أرجع إنه كوسو عندنا إن شاء الله أنا حاجة واحد سكون مننا الدعوم بهاد يتاجره إن الجرب تشوفه إن ولا علينا حاجة سكون يمدي أو يديري أو السوق مقابية أنا واحد كلنا جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا الله إلهي ومان سبحانه وتعالى وحان عاوى مقالة برمنغهام عن سوق إيماني أنه يعني ددوا وين يضد يدل يرى سوجر انتبه مقالة برمنغهام أو أنقود عشيني أو أن أدعيني walaalkeen Liban Mustafa Xasan بريتو هدو الله يرحمه وحن لنا هاي event وين oo magaalada Birmingham ka dhacaya oo aan rajaynayno insha Allah ta'ala dad tiro badan inay yimaadaan si loo taageero walaalkeen waxaan leeyahay Liban insha Allah ta'ala waad ka kici waad heli doontaa insha Allah aragaagii hadii Allah yiraahdo aragtidaadana kullay waad qabtay oo adaa sheegay cidi kaaman qaadin arrintan waxay ahayd arrin qadaran oo qoran insha Allah ta'ala waxaan oran lahaa marka walaalahay waa cibro arrintani dhammaanteen way noo baahan tahay in aan ku cibro qaadano qof kastana waa laga rabaa walaalkii in uu soo garab joogsado insha Allah ta'ala waan oran lahaa hal soo garab joogsado walaalkeen Liban Mustafa insha Allah walaalihii caawa ka soo qayb galay aad baan ugu mahadinayaa walaalkeen diiriye oo madashaan noo diyaariyay ilaahay gurigiisa barakeeyo isagana ha xafido aad baan ugu mahad celinayaa waxaan noo imaan doonaa berito Sheekh Cabdiraxmaan Barkad Good
walaalaha ka soo qayb galaan online insha Allah ta'ala waxaan ku soo xidhayaa hadalkan duco walaalkeen aan u ducaynayno iyo codsi aan idinka codsanaya caalamka meel kastoo joogtiin inaad u ducaysiin iyo qof kasta oo dhibaataysan runtii in loo duceeyo dhibaatadu intay adiga kaa maqan tahay walaalkaabay ku maqan tahay marka ilaahay idinkana idinka xijaabo inta dhibaataysanna ilaahay dhibtaa ka qaado gaar ahaan walaalkeen liibaan ilaahay waxaan ka baryayaa sabirkiisa inuu adkeeyo iimaankiisa inuu qaweeyo xoojiyo waalidkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu sabarkooda adkeeyo ilaahay inuu u fudaydiyo ummadda u sikhiro sidii uu u heli lahaa arigiisi dib ugu heli lahaana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu sahlo waxaan idin leeyahay walaalahay dhammaantiin intaad noo daawateen ilaahay ha idin barakeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كان عاو وتلقلني إن الليبان لقوا عاوي أنت سنو قلنا يهي مرلبات وحنا الليبان وكوسو دعين إن إلهي نور كوسو عليا أنا قلت ديرية داهرة حق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته